dabadi wanaagayda qalday siday turxaanta u dhameen dhigood iyo qayrkoodu dhaafeen allow dhow dabadi wanaagayda qalday siday turxaanta u dhameen dhigood iyo qayrkoodu dhaafeen waxaan rabaa inaan idin sheego dadka maamul goboleedada sheeganaya ee Soomaaliya sheeganaya ee xarmaajo u weyn yahay adeer cadownimada aan maanta Somaliland tusaysaan ama idinka muuqato waa aragnay hala sii sheergarayo meel kasta jirtaan soo dhawaada war hawiye daarad hay kala saarin been idin sheegma hawiye daarad hay kala saarin hawiye daarad waa isku mid hawiye daarad dun abi hayba sheekada la soo dhajiyay hawiye daarad dun abi hayba la soo dhajiyaa adeer waxaas wax ka jira malaha wax ka jira adeer malaha anagu ilma sameeyay dad waaweyn oo aqal ilaahay siiyaba soo dhawaada la sheer garayo hala soo dhawaado adeer Somaliland isha wax laga goyn maayo hadalna way ka dhantahay sawirna way ka dhantahay ma garad ninkii aaminsan Somaliland inuu ku burburin karo af iyo bahalkii adeer waxaas ma socon sheer garaya adeer kaasa wataani ninkii ka xun ninkii kala kaasa wata kaas maxaa looga xaaraaya kaas maxaa looga gubanaya Malaysia ka soo dhawaada hala sii sheer garayo war hawiyaha aad moodeysaan hataa wallahi walaal ma galaan wax hawiye la yahay ma jirto adeer wax daarad la yahay ma jirto wallahi billahi wax daarad la hawiye la yahay ma jirto hadda runteedii sheegay waa soo qoonaya sii sheer garaya wadaniga dawta allow dhow Somaliland allow dhow adeer sii sheer garaya hala sii sheer garaya hala soo dhawaado waxaan rabaa inaan idin sheego maanta waxyaabo badan baan rabaa inaan idin sheego oo kamid ah cadawga Somaliland xagee ka jira yaa cadow ku ah yaa diidan jiritaanka Somaliland yaa diidan nabadda ee Somaliland haysato yaa ku faraxsan inay burburto yaa ku qanacsan in maanta Somaliland lagu kala guuro yaa ku qanacsan yaa abaabulaya waka qaaday Faadimo umeyn adan ku salaamay soo dhawow wiil direed sii sheer garaya hala soo dhawaado dhawaaqaygu meel dheer inuu gaaraan maanta been idin sheegma kuwa waxay yiraahdaan calan maxaa u samaysan weyday oo calanka reerka ku ursalay war Somaliland hal reer ma laha Somaliland waa wadan balaaran dad badan baana leh reer isaaq la yiraahdo ma laha sabaroon baale ciisaale waxaale warsingeli waxaale dhulbahante adeer Somaliland waa dal weyn been idin sheegi maayo hala soo dhawaado hala sheer garayo cadawga Somaliland ma rabaa inay sheego maanta waxaas gobolada u kicila yihiin oo loo gumaadayo oo loo fashilinayo adeer wax kale ma Soomaaliya ku waalatay maxay kaga waalatay Somaliland marka Soomaaliya Malaysia kara musabici halka tagay baad degantiin Soomaaliya musabici halka tagay baad degantiin waxa u didantiin horumarka haday gaari lahaayeen ama nabad samaysteen ama ay qurux samaysteen ama wadankooda ay ilaashadeen adeer wadankiina ma ilaashan maalin walba nin baad soo kaxaysataan farmaajo la yahay sharabihuuda oo siyaad bare ficiisa oo siyaad bare ku abtirsanaya ninka aad maanta madax ka dhiganaysan isaaqaya warsangeli baa dhulbahanta adeer dad badan baale ana hadda idin sheegay idin baraya adeer haddii isaaq kaliya uu leeyahay Somaliland maxay u joogaan sool iyo sanaag yacayn maxay u joogaan maxaa ma jeerteen u tagi waay bal ma is weydiisan horta ma jeerteen muxuu u tagi waay oo Puntland sheegay maxaa xaafadda looga dhigay haddii ninka yiraahdo nabadoon
adaan ku sheegaya ma jeerteen muxuu tagi waayay sool iyo sanaag yacayn muxuu tagi waayay sool iyo sanaag yacayn ma ii sheegi kartaa ima sheegi kartid ma garad dowladda soomaaliyana waxaan leeyahay farmaajo adeer waxba ma tihi wax aad tahay ma lahaade sii shargaraya hala soo dhawaado adeer farmaajo waxba farmaajo kaliya awr hawiye ka hadlaya arkay hawiye Somaliland ka hadlaya arkay been idin sheeg ma hawiye daarood waa isku mid daarood laba jifi baa adeer Somaliland waa la ogyahay waa dhulbahantay warsingil inna loo sheegi maayo adeer nabadda Somaliland cid walba way diidan tahay nabad in Soomaaliya nabad gaarto waa la diiday Somaliland nabad gaarto lama rabo Somaliland inay nabad hesho lama rabo inay waddankeeda dhisato lama rabo inay waddankeeda uu nabad noqdo oo horumar gaarto oo aqoonsi hesho lama rabo been idin sheegma Puntland taas xaafadda baa diidan galmudug baa diidan koonfur galbeed baa diidan hirshabeelle diidan adeer annagu haddaan magaca direednahay Somaliland waa taageereen nin walba oo magaca direed ku absanaya waa inuu taageeraa Somaliland waa inuu Somaliland aqoonsan yahay dowlad gool isku taag adeer sheertina ma arko hala shargareeyo hala soo dhawaado faha wanaagadisaha wixii dhacayaba lakiisa hayaha wadaniga dhabta lagu dhowr sii shargareeyo hala sii shargareeyo hala soo dhawaado adeer ummadda Somaliland nacab maanta idin sheegaya maanta waxaan rabaa runta inaan idin sheego reer Somaliland ma la hadlaya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan la hadlaya ummadda magaca adireed ku abtirsataan la hadlaya soo dhawaada hala sii shargareeyo hala soo dhawaado adeer midnimada aad sheegay sida muqdisho dhaafis nacaadeen caladood daa muqdisho dhaafis muqdisho baa dhaafis midnimada aad sheegaysid baa muqdisho dhaafis muqdisho ma dhaafi kartaa farmaajo waa kan muqdisho ka talin waaye musabbix xagee soo gaara bal isweydii adi musabbix xagee yimaada tuqraq buu taagan yahay tuqraq buu yimi ka war farmaajo weligii muqdisho meel lagoo bixin farmaajo weligii muqdisho meel lagoo bixin hawiyana ugu sacabtumaan hawiyana daaradu ka dambeeya wallahi billahi tallah aaminin la ta'amin waxay ahayd la ta'amin wa beenaya wala ka xaaja aada walaw daarad ha aaminin walaw ka hawiye ku dar walaw ka xaaja hawiye ku dar intaba isku dar minna ha aamin Somaliland adar nacaybka aad tusteen hadda soconaysa nacaybka aad Somaliland oo qabtana waa aragnay been idin sheegay nacaybka aad Somaliland ku taagantiin adeer hadduu noo muuqdaa been idin sheegi maayo wax aad ka qaadaysana ma laha wallaahi billaahi waxaan rabaa reer koonfureedka Hargeysa ku nool in xabad looga soo saaro magaca Soomaaliya qof ka tirsanba oo aan leysan lahayn sool iyo sanaag ahayn in xabad looga saaro wallaahi billaahi tallahi jaamacadda amuud ay ku taallaa boorama in laga saaro maanta meel kasta ay magaca Somaliland laga yaqaan Soomaaliya in laga tirtira raba meel kale gulgu gaari maayo والله بنقول كلا لو جاري إلى لا ترتر الصومالية Soomaaliya إلى لا ترتر نعيب كإيمان تيجي قبان حتى تسوي ذا وليجين ما تصيصان هذا الصومالية كم تجعله الصومالية بقولك هذا تعيشه ما من قبلات هذا اللي قصة ماستي ما من قبلات ترى إيش شيء بدلن بالغفانا وحافظ والله بالله وحافظ بدلن بالغفانا وحلغفانا كونفور قلبي وحلغفانا شبلا وحافظ هوية لفتي سواء لمد دارد بلمدية دارد بنعبتين هوية ولا مد دق يدمر كيوا دق يدمر كيوي بين إدين شيء ما دارد الله رربا Somaliland تاجرسن Somaliland أمسن وورسنجلي للبهانت دولك إليهم وادر Somaliland هدي أول ليهن الصومالي هذا كله بل هالسؤال الصالي السنة كليه سون يا السنة كسؤال أدري السنة أنا كله أنا الشلة كيم ما قرأت وحنا إذين شيء أدري سيشر كراي بقول أفرت كذا سيشر كراي
meel walba ku turo waxaan rabaa inaan ummadda reer Somaliland u sheego waxaan ummadda reer Somaliland kala hadlaya adeer qabiilkan garxajis iyo jeegaan iyo ka baxa ummadda Soomaaliya cadowgiina weey waxba cadowgiina weey Muuse Biixi ba halka maray waa ka maanta laga hinaasan yahay waa ka dawladda Soomaaliya isweydiinayso dawladda Soomaaliya waa ta isweydiinayso maxaa la isku weydiinaya war reer Somaliland ma isweydiiyaan Soomaaliya ma yiraahdaan Soomaaliya maxay horumar u gaartay maxaa caalamku aqoonsay Somaliland ma tiraahdo ma tiraahdo Somaliland ma tiraahdo maxaa Soomaaliya loo aqoonsaday maxaa Soomaaliya horumar u samaystay maxay Soomaaliya nabad u yeelatay Somaliland laga ma yiraahdo maxaa kalifay marka reer Soomaaliya war waa isku mid baati farmaajo maxaad u raaxaysan hawiye waa la mid ana hadda runtii idin sheegay hawiye waa la mid hawiye daarood ba Soomaaliya dhisantahay nimanka direed baan la hadlayaa marka adeer awood qaybis baa dawladda lagu leeyahay haddii ay waxba ka ahayn adeer iska casila waa fashilanta iska casila been idin Somaliland waxba idin kama baahna Somaliland wax idin ka tar aad ka yeeli kartaan malaha burburka idinka ugu wacan burburka waxa ugu wacan nimanka ka yimi Hargeysa iyo Boorame oo aan ku noqon kana xaafadahoodii waxa ka sii daran nimanka gobolada dhexe laga soo doortay Jubbooyin ee suro sheeganay biimaal sheeganay baa ka sii daran Ibrahim soo dhawaada sii shargareeya hala shargareeyo adeer waxaan idin sheegaya marka reer Somaliland waxaan idin sheegay maanta cadowgiina waa aragtaan garxajis maaha oo jeegaan maaha oo reer hebel maaha been idin sheegi maayo waa daarood iyo hawiye see daarood iyo hawiye marka ugu hortay kartaan see marka gacmaha isu qabsan kartaan idinkoo mid noqda baad kaga hortay kartaan cadow kastoo idin soo wajaha laakiin inta qaybtiin la iibsanayo wallaahi billaahi tallahi inaan waxba noqonayn adeer sii shargaray hala soo dhawaado maanta waxaan rabaa inaan u sheego ummadda reer Somaliland in maanta Somaliland wax badan aan maqli jiray qaranka Somaliland qabiil in laga daayo in qabiil laga saaro in aan qabiil lagu abtirsan anigu waxaan rabaa in aan qabiil lagu abtirsan ee lagu abtirsado degaan iyo dhul in lagu abtirsado adeer anigu nin diraanahay nin isaaqa ma ihi dir haddaan ahayna Somaliland waa taageersana waana dad nala dhashay ma garad laakiin Somaliland ha laga daayo qabiilka maanta lagu soo celinayo adeer waxaan idin sheegayaa cadowgiina maanta waa aragtay sii shargareeya hala soo dhawaado hala soo dhawaado calaykum salaam soo dhawaada sii turtuura adeer dhalaarta heesta u qaateen aawe maanta heesti marka heesti aad u qaateen calanka marka maxaad u qaateen marka heesti maxaad uga dalahaydeen maanta haddii maanta cadowgiina ka faa'iidaysanayo war farmaajo waa shaqsi majeerteen baan ku jeclayn waxaan ku jeclayn mareexaan waxaan ku jeclayn ogaadeen yaa ku jecel yaa maanta isku halayne reer Somaliland ma la hadlayo adeer maanta yaa mid noqotaan isku day wallaahi billaahi tallahi Soomaaliya waxay u kicilaahay qabiil haddii aad qabiil maanta ku xisaabtaana wallaahi inaan meel gaaray adeer Somaliland qabiilka laga daayo Somaliland in qaranka asal ku dhawaaqday inuu hiriga waa rabaa waxaan ku raaxaysanayaa oo in farxad ah Somaliland ta atraade waa qaran inaan maanta indhaha ku arko in ay maanta Maxamed Cumar Cabdillaahi waa ku salaamay ku istaagay laba doole ninigu cusub u jeeda abti Maxamed Cumar Cabdillaahi aadan ku salaamay la kiraas casar soo dhawaada sii shargareeya maanta waxaan rabaa inaan ummadda Somaliland la hadlo oo ummadda Soomaaliyeed u sheego runta ummadda Soomaaliyeed Somaliland ma jecla laakiin xaraaj casar gabar ma jeerteen tahay ma jeerteen ba inta kugu jira isaaqo ma Somaliland ma jeerteen ba ugu jira 10 kilomitir kuma jecla laba reer ba daarad ka adres ka tiin oo xuduud wadaagtaan oo dhul wadaagtaan waa warsangeli dhulbaantana siyaasad bayna ka dhaxaysa wax aad isku haysana malaha yaa idin dhex taagan ma jeerteen ba idin dhex taagan ma reexaan ba idin diidan ogaadeen ba idin maxaa idin ku diiday ma ii sheegi kartaa waxa idin ku diiday qabiilka maanta asaasaysan qabiilka maanta aad leedihiin
garxajis iyo jeegaan iyo muuse reer awdal iyo reer bahalkii adeer waxa ka bax wallahi billahi tallahi Somaliland mid waxay ku noqonaysaa laakiin xasan maxaa ka soo qabtay gabar ma jeerteen aad tahay adooga Somaliland koow ma jeerteen hadda runta idin sheegaya adooga Somaliland koow ma jeerteen laba waa mareexaan saddex waa ogaadeen Somaliland jiritaankeeda dadka nacab waxa soo raaca hawiye waxa ku jira habar gidir waxa soo raaca oo kale abgaalka wardad ma aha been ku sheegi maayo waa isku mid waa dhagi dameerkii waa hawiye daarad maxay u kala saaray daarad laba reer baa ka wata laba reer baa FIFA leh adeer laba reer baa FIFA leh oo jecel Somaliland jiritaankeeda laba reer baa dani ugu jirta oo jecel labada reer oo jecel yaa oo warsangeli dhulbaanti Somaliland marka inay qabiilka maanta ka baxaan raba farmaajo wuxuu ka hinaasay muuse bixi halka tagay muuse bixi uu soo Yurub buu soo socdaabay Ingiriiska uu socdaabay Ingiriiska uu socdaa laga xukumi jiray Somaliland ma taamo niyadiisa ma galmiya wal farmaajo adeer hawiya qastay hawiya waxba kuma harin waa soo cuntay Somaliland baa ka soo hadashay Somaliland maxaa ka hadashaa war maxaa la isku darsadaa bal ii sheega muqdisho dhaafi way dawladda muuse baar dawladda farmaajo ilaahay baan ku dhaarshay muqdisho dhaafi laada ma dawladda muqdisho dhaafi la baa Somaliland ka hadlaysa maanta Somaliland inay ka hadasho ma dawladda farmaajo keentay war farmaajo dawlad ma haysatid dawladdaadu meel ma afkeeda ma gaarsiisana oo balcad ma gaarsiisana oo buqda ma gaarsiisana oo show ma gaarsiisana oo hiiraan ma gaarsiisana dawladda farmaajo xagee gaarsiisanta xagee maamusha dawladda farmaajo war galmudug baa maamulin hadaa maqashay niman daro xeelada degan baa hubkii farmaajo khayraga wareejiyay waxaas waa af Soomaali sawir weeyaadan aan habar gidir ku baasdileen habar gidir baan filinka loo dan lahayn habar gidir baan filinka ku dileen isha cadaan maxaa lagu dilaa yaag ba cadaan baan ku dileen habar gidir saa waxaan mooday inay dawladda hore qaaday adeer dawladda meel ma gaarin dawladda Somaliland aqoonsi ilaahay baa siinaya laakiin ummadda reer Somaliland baa la hadlaya farmaajo adeer iyo iska daa farmaajo wallahi nin Soomaali ku abtirsanaya hadii Hargeysa uu sii joogo wallahi billahi tallahi idinkaas Soomaali noqonay idinkaas qadiyadii shalay aad gooni isku aragteen qadiyada shalay goonida u istaagteen dhibaatadii liigeystay adeer waa ogna waa la soconaa yaa idin geystay waa ka soo miran farmaajo miran oo maanta waxna kaama tari karo waxa kuma yeeli karo kuma soo duuli karo kuma iman karo وانا هلايا وحنا كوموغل وحو كوغل يا مال والله بالله تالله هدي أرش ذا لا يقول أما وحير باركي لا يهرو والله بالله بنو كوغل نك فرماجة لي هذا اسكت دارود بان كوغل بدل أنت سان كوغل دارود ورسنجري البانت لو كله وداعان لوك كله وداعان Somaliland قبيل ما هذا هذا رنت يدي شيء Somaliland إسرائيلية ملا Somaliland وحالة دارود يدير يسا عدو البويلة هذا واحد كتر سنكرة لكن ما أنت واحد ستين حماتنا Somaliland إذا كجرتا Somaliland حماتنا محيو قلوي محيو قوين وايين ودوينك لامية ميل والبقو Somaliland كسوكش محيو قوين وايين وإن سوق بنا يا أدر وحنا لا يهرر Somaliland مدينة كنقطة marka midina noqotaan baan caalamku ida eegaya laakiin maanta caalamka maxaa loogu sheegaya Somaliland waa qabiil waa reero istilaya waa reero aan israbin waa reero aan jeclayn beenku sheegmay sida habar gidir baa isku cunaysa habar gidir iyagoo gobol iyo bardegan been hadana heshiin saacad ma heshiiyaan saacad wallahi been saacad heshiin habar gidir saacad ma heshiiso gobol iyo bar been wax ka degan yihiin waliba hada gobolka iyo barka iyagu ma degana مريحان بدقن دير بدقن مشرتين بدقن ليلك السادقن يو قبل يبردقن بهتنا منافقة لحدي منافقة بلا لحدي مركب ما وحربتان إن المعمول قبلات كنا قطان هذا المعمول قبلات قاعديننا معمول قبلات قاعديننا كنا دي كنا هلا مركز تدري تكتر محلية هذا هو إن أوستا على كالسومالان وإن ورفير هذا كوروان كهلا والله بالله لكن هو يتقانعني أنا راس غريبان reer boosodna waana ninkii reer boosod ninkii raas qaro u yaqaan waxaana idin sheegaya
waxaan idin sheegaya waqti dhow inaan waddanka imanayo waqti dhow inaan imanayo anoo kaa wada haddaanan kaa wadanna haddii anoo aan kaa wadan imanna hooyaday biyo foolata adeer been idiin sheegi maayo waxaad ka dhammaan weydeen Soomaali horaan uga hadlay hore baan uga hadlay waxaan ni Soomaaliland waa lagu soo maqayay maanta maxaa dhacday Muuse Biixi baa halkaa tagay Muuse Biixi baa laga masirsan yahay Muuse Biixi dawlad buu samaystay kala dambeyn Muuse wallahi ciidanka Hargeysa jooga kaliya iska daa dhulka kale ciidanka Hargeysa jooga inaan koonfurta Soomaaliya joogo koonfurta Soomaaliya ma joogo Amisom baa joogta Amisom baa dabadooda ilaalisa Amisom baa rabta dabadii ilaaliso war Soomaaliland ma Amisom baa rabta dabadii ilaaliso ma yeelin taa ma qaadanin nin duday oo adeer Puntland u cararayna oo caada qaataan adeer nagama tirsana qabiilku raba ahaado nagama tirsana been idiin sheeg maayo waxaan rabaa inaad mid noqotaan qabiilka iska saartaan Soomaaliland mid ka dhigtaan adeer Puntland tan idiin faanaysa wallahi billahi tallahi waa gobol iyo bar ma jarteen wuxuu daga gobol iyo bar Soomaaliya wuxuu isku haystaa kii kaliya buu isku haystaa muxuu ku keen waa isjacayl yahay buu kaaga dheer yahay adiga isma jecel adiga waa la isku hadiraya maxaa keenay maxaa koos gareeyay ima jarteen maanta isjeclaado oo isoo gobol iyo bar degan haddii ay gobol soolisanaag oo xaafad noqonayo wallahi xaafad buu noqonaya sool iyo sanaag haddii Soomaaliland la aqoonsado ay Soomaaliland lagu heeyo isku taagto ma jarteen xaafad buu noqonaya Puntland lama oranayo Soomaaliya la oranaya Soomaaliya la oranaya ma garad Puntland waxa laga taageeraa Jubbaland maxay ku dhisan tahay dhiig ummadda ku dhisan tahay ummad diraad deganeed waa laga barakacay ummad gaal jecel degan waa laga barakacay ummad shaqaale deganeed awood kuma laha cudud xagee laga saaray waa ma jarteen wallahi billahi Puntland bas war Cabdullaahi Bilo muxuu hawiye ugu sheekeyn jiray ma jarteen baa idin jecel galmudugow ma jarteen ki jecel bay u qabtaan xaafay u qabtaan warniyo xishooda hawiye daaro isku mid bana haddaan dirnay hawiye daaro isku mid bana ooti hawiye iyo daaro isku mid bana ooti isku adawga koowaad oo Soomaaliland waxa weeye gobolada maamul goboleedada xaaraanta ku dhisan nimanka dirad ee dawladda ku jirana waxaan leeyahay nimanka dirad ee dawladda ku jirana leeyahay adeer waqtigan wuu iscunaya waqtigu wuu socdaa waqtigu wuu dhamaanaya laakiin ballan waxaan qaadnay nin kasta oo magaca dirad ku abtirsanaya oo dhiig dirad ku jiro ya inuu ficil muujiyo adeer ficilka muujiyo xabad awal baa ku dhacaysa xabad way ku dhacaysa been kuu sheegi maayo xabadna waa taqaanaa marka waxaan idiin sheegayaa adeer daaroodkan sheeganaya ka hadlaya maqaamka Somaliland adeer Somaliland hore u socotay way tashatay waddankeedu way quruxsatay nabad bay ka dhisatay ciidanka jooga Hargeysa wallahi been koonfurta Soomaaliya oo dhan la isku daro Hiiraan guligeed isku dar maamul goboleedada isku dar bal hal maamul goboleed ee Somaliland u dhigmay sheeg laba maamul goboleed isku dar saddex isku dar afar way gabigeedba Soomaaliya waa afar bal afarta maamul goboleed markaas isku dartaan Somaliland hal maamul goboleed oo soo shabahay sheeg sheeg ma jiro yaa soo qabtaa wax Soomaaliya rabaa inaan soo qabto kuwa Soomaaliya joogan rabaa cadaawada Soomaaliland u qaban inaan soo qabto adeer Somaliland ish wax kaga qaadi maysan hadda runta idin sheegaya waxba khayra iyo farmaajo aanu ma macna hawiye daarado isku mid daarad laba qabiil baa ka jecel Somaliland waa hartina waxay ka siiyeen waa ma jarteen iyo dhulbaanti labadaasna Somaliland iyaga ka haya adeer doqontan ma jarteen iyaga ka haya ma garad yaan soo qabtaa wax noo sheegaya qof aan soo qabtaan rabaa adeer Somaliland waxaan rabaa inaad ka saartaan qabiilka inaad qabiil eedin gelin inaad qarankaas shalay doonayseen adeer wuu socdaa hawshana lagama jiifsan Muuse Biixina adeer ishaynta Muuse Biixi leedii waxbuu beleeyay waxbuu xumeeyay adeer wax ka xun baa soo socda been kuu sheegi maayo adeer wax ka xun baa soo socda adud ciidan laguma soo diri karo laakiin siyaasad baa lagu la dagaalamaya siyaasadda maxaa kuu diiday adi maxaa siyaasadda kuu diiday maxaa siyaasadda ka saaray
maxaa reer kaa dhigi adeer reer ka daaya reerka ka daaya gabadhaan soo qabanaya kaada oo kusoo qabanayaa cabdiraxmaan cabdikariim sii sheergaraya hala sii sheergarayo markaa waxaan rabaa ummadda reer somaliland baan la hadlayaa adeer somaliland ummadda ku nool soo dhow qabiilkaaga magacaaga السلام عليكم. may maqle may أوه maqle مقلة يا سمونك. qabiilkaaga magacaaga waxaan joogaa Soomaali. xaggee joogtaa Hargeysaan ka joogaa gabadha Isaaq oo amar ah walaba. isaaqaa naga daa qabiil ma ka daynaysaan somaliland oo qaran ma ka dhigaysaan adeer waa ogtiin cadowga ummadda reer soomaaliya ee idin hayso maanta ma aragtay Waa qaran niyow. Okay. Anaa iminka kula walaal waa Qabiil. qaran. adeer somaliland ma isaaq keliya la mise dad badan baa wax ku leh Dee Somaliland Isaaq oo keliya ta maba ahaba. si fiican Soomaad garan. laakiin aanu mid Si fiican. keliyuun baan sheegayaa niyow. Dadkan wax buunbuuninayo Somaliland waa Somaliland. Waxaad garatay ma? si fiican beesha Isaaq la yiraahdo keliyatina ma degto intaasoo qabiil baa degan Si oo fiican. ku walaaloobay wax hurgufo Si fiican. wixiina diidan anaga ku deganoo maanta cidaan nala ogolayn nabadgelyada maanta Somaliland may dhisnaateen kowdha si fiican laakiin dadka Somaliland ku cadowgaa baan sheegaya aniga Somaliland dadkan maanta Hargeysa iyo Burco iyo Boorame iyo Laascaanood iyo Ceerigaabo maqlay? iyo isku soo urur dadka ku nool way ka go'ay sax mana u baahna waana calooshooduna way ka go'day marka ninka farmaajo la dhaa ma aragtay nacaska waa nacaskaasi anigu hadalkiisaan ka boodsanaybe waxaan u Kusoo. sheegayaa keliyaata kaara lagu ilaaliyaa kaaray uu ku dhex Waa la ogyahay. kaajabacaasaa Waa la dabadda loo waa la ogyahay. muusana Waa la ogyahay. muusana aday laba ragoo ilmaadeeradii abtiyo Somaliland ayaa ilaaliya suuqa Hargeysa bartamiis u dhex lugeeya si fiican si fiican ninka cadaanka ay maanta ama madow ahaa ama adduunka meesha doonaa ka soo jeeda ee uu leeyahay xiriirkan gooye xiriirkaas sidaan idhi kanaasan adeer bacd niiko khafiifa ayuu suuqa Hargeysa dollar ku dhex qaadan karaa cidna la hadli karin Soomaaliya miyuu ku dhex qaadan si karaa fiican maxaa marka okay arrintan soomaaliya ka socota way ka weyn tahay farmaajo waa shakhsi daarood iyo hawiya degan daarood iyo hawiye maxaa leedahay marka cadaawadda ma ka siman yihiin mise farmaajo keliya aaminsan tahay inay cadaawadda somaliland tahay keliya horta maya maxaa toolay farmaajo horta qayb buu ka leeyahay laakiin anu ma aaminsani hawiya Somaliland cadow ku ah so okay daaqadna maxaad ku waa cadaynaysaa ma in maxaa hay toolay hawiya maxaa hay toolay hawiye daarood waa aaminsan tahay oo waxaa ka mid ah farmaajo hawiye maxaad ku cadaynaysaa inaanay mucaarad ku ahayn ama nacsanayn somaliland waxaan ku cadaynayaa dadkaasi iminka ma aragtay barigan ma aragtay Boosaaso iyo dhulka gabadha khadkaa ka xun khadkaa kaga dhigay may maqlaya aadan ku salaamay marka gabadhaas waxay aaminsan tahay inaan hawiye ku ahayn somaliland nacayb ama xumaan somaliland weligeed hawiye leh yaa somaliland maanta nabadeeda iyo ka hadlaaya iyo horumarkeeda ma jirto marka hawiye daarood maxay u kala saaray daarood laba reer baa somaliland ah laba reer baa somaliland ah sool iyo sanaag somalilandna qabiil maaha haddaan idiin sheegaya runta deeqa waa idin soo qabanaya kulligiin
qof walba 5 daqiiqaan siinaya السلام عليكم محمد أبتيس soo dhawo كورن adiga qabiilkaaga magacaada إسحاق قرحكي سابري يونس ولا okay gabar isaaqaa tahay reer somaliland maxaan marka waxaan kaa rabaa galxijis iyo jeegaani horta halkaa inaga dhiga somaliland ma raadinaa somaliland si shir loo dhidbay somaliland qaran u ahayd qabiil u ahayd ma aaminsannahay macne mise jeegaani iyo galxijis iyo reer hebel baa aaminsan horta السلام عليكم سلام يا وانا محسن tahay موضوعا مركا حكتا موضوعي markaynu ka hadlaynay aan lahayd yani Soomaaliland waxa cadow ku ah koonfurta Soomaaliya Soomaha intaanu ka hadlaynay makan iyo waxa Soomaaliya ka socda koonfurcad in adeero horta waxa wanaagsan in Soomaalinimada lagu soo wada dhawaado qofkii baxay iyo qofkaan baxayn horta waa u gooni dadkan waa Soomaaliya oo walaalo meelaha ma kala socdaan dalkana waa la wada leeyahay marka waxa tiri hawiye iyo waxa mucaarad ku ah daarood hawiye iyo daarood Soomaaliland waxbay ka leeyihiin labaduba waqooyigii Soomaaliya ku celi hawiyaha Soomaaliland wax ku leh maxay yihiin daarood waa la gartay dhumaantay warsangeli wax ku leh hawiyaha wax ku leh Soomaaliland ee dhulka la wadaaga yaa daaroodka horta wax ku leh waa dhulbahanta iyo warsangeli iyo maxay ahayd qolo kale iyadana sanaag degto bahayl way fara badan yihiin anigoo dir aba sanaag wax ku leh oo Soomaaliland wax ku leh waxaan ka rabaa hawiyahan Soomaaliland wax ku leh baan ka rabaa macnaheedu dad garanaysa warde waa fiqishini kowde fiqishini waa waqooyi Soomaaliland waa magacii Ingiriisku imika bixiyay dad badan baa imika anigaasaa ka hor midin adeer markaan runta isu sheegno ha oranin marka waxba halkan ka socda Soomaaliland waxa ka socda ee dhibka ah ee xasuuqa ah ee gumaadka aan horumarka lahayn naamay maqle stop qabo marka su'aalaan ku weydiiyo jawaabaysa marka su'aalaan ku weydiiyo jawaabaysa war waxba kaaga jawaabay naga tafsir xun oo laan gaaba tahay maxaa hoolaan ku galiyo horta isaaq ma tii maxay isaaq u sheegay war war fariiso ruuxun oo laan gaaba tahay maxaa tahay horta maxay isaaq u sheegay yaa ku dalbaday adiga aroorada gumadiyo midgaanka afka weyle foosho xunaad muddo bahal la cunay anaga tag isaaq ma aha ayada taqaana isaaq baalay alla ila bal qabiilkeeda ka carraysa hawiye weey naagtaas maxaad hawiye in adeer anu maana ku dulmiye waxaan kuu sheegayaa aniga maana ku dulmiye qabiilkaaga sheego suntana ka hadal aniga waa caadi kartaa surre waxba ma aha oran kartaa waa laangaab oran kartaa kuma diiday ma garad laakiin waxa u hadashaa adigoo wajiga qariyay oo dudumo u sii eg aan wajiga ma qarsanba nin baan oo ay soo moogid laakiin waxaan kuu sheegayaa hawiye kow inuu ka yahay cadowga Soomaaliland labo in daarood warsageli marka laga saaro ma garad adeer naagis qaranaysa horta imaba caay karto been kuu sheegay marka caynaysa wajiga arko qabiilkaaga magacaada aniga qabiilkayga isaaq bana isaaq reer Somaliland baa tahay ha okay naagta hadda hadlaysay waa dhageysanaysaa u malanaya kale dadka qaar way jiraan de maartay waxa weeye siyaasadda maartay marka ka dhacdo qofba aan cidaan u hayn iska sheegto marka in maartay aliis haday maartay isaaq sheeganayso ama leedahay reer Somaliland baabaan hayba in maartay si yar oo wanaagsan baa loo soo hadlaa maartay meelo badan laakiin de waa cadaysatay caayba bilowday marka halkeeda ku dhaaftaas okay marka inaad Somaliland qaran baan aaminsanahay inay tahay muddo dheer qarannimo ku dhawaaqaysay ama qarannimo raadinaysay horta qabiil ma aha oo waa qaran oo aan qaran ku aaminsanahay isaaq kaliya ma laha dad badan baa wax ku leh Soomaali badan baa wax ku leh oo dhulka degan dhul baa la yiraahdaa Somaliland marka waxaan ka rabaa ummadda reer Soomaaliya waxaad ka aaminsan tahay inay Somaliland ay jecel yihiin mise waxaad ka aaminsan tahay inay Somaliland neceb yihiin inay jeclaan horumarkeeda nabadeeda go'aanshaheeda maxaad ka aaminsan tahay ummadda reer Soomaaliya aniga horta honest baan u hadlay ilaahay dartiisa Somaliland waxa loo aaminsan yahay cadow inay yihiin Soomaaliya waa cadowgayga koobaad Afrika sifiican
marka kolley Somaliland wax loo ogoliya ma jirto dee Somaliland gudihii waa ku yara xoogeystay runta marka la sheego marka Soomaaliya la yiraahdo wadanka Soomaaliya la yiraahdo Soomaaliya waxay noqdeen wadanka ugu xooga badan hadda ayay noqdeen Somaliland markaas dagaalka kaliya ee Somaliland lagu qaadi karo waa international in lagu sameeyo marka taan oo dul qaadanayna dhoon wari waa kolley waqti u baan laga dhamaanaya laakiin waxay la tahay inay maanta haddii ay raad George okay George waxaan ka rabaa marka xamaatada reer Soomaaliya ay ku hayso waa aragtaa ilaa madaxdoodii baa ka hadashay haddii madaxweynaha uu dhuuso ama dhaqaaqo ama uu horumar sameeyo laguma ogola waa laga soo horjeeda adiga maxaad u aamusan tahay reer Soomaaliland maxaad u hadli laadahay maxaad ugu kacsanaan weyday dawladda Soomaaliya maxaad ugu kacsanaan weyday jiritaanka ummadda Soomaaliyeed haddii adiga jiritaankaaga la ogolay maxaad ku jeclaatay marka inaad ka hadli horta marka ugu horeysa wax siyaasad liyaha jira wadanka soo ma ogid siyaasad adduunka ku socota qofka hadduu siyaasad way wala socdaa laakiin waxaad ogaataa anaga marba siba naloo soo gelaya mar in la yiraahdo Somaliland la yara kala jijibiyo mar laakiin waxaan ognahay inaan Somaliland weligeed hal ahaanaya mid ahaan isku durmaanayaan oo dad isku tagay qaran noqdeen marka anaga sidan imanka ay sameynayaan hada ha finish insha Allah sidan imanka ay sameynayaan imanka reer Soomaaliya ama madaxdooda ha noqoto ama shacabkooda ha noqoto whatever ba Somaliland waxay istaroon bay ka qaadayaan inay isku duumnoodaan oo maaragtay wadankooda ay sii horumaraan oo caalamku sii arko mooyaan wax dib dhaca kuma sameynayaan oo waxba noo sii dhibayaan horta taa weyn la fahmaa laakiin waan ognahay in internationals leeyihiin hal laga waabiyo oo hal yiraahdo Soomaaliya iyo Somaliland wali waa isku xiran yihiin oo dadkani maarta aqoonsi ma haystaan markaas sidaas inay sameynayaan imanka waa loo jeedaa laakiin waxa dhacaysa in lagu kala bixi doono oo waqti imanaysa laakiin imanka Somaliland way soo jeesatay waa u jeedaan imanka waxa ka dhacaya marka insha Allah anigu waxaan leeyahay reer Soomaaliya iska yar adkaysta insha Allah Somaliland isku soo jeedinaysaan ba la ogaani doonaa insha Allah okay abay aadan ku sameeyay gabadhaas waxay soo qabanaya si sheer gareeya aniga waxaan rabaa ummadda reer Somaliland inay aragto cadowgeeda inay u fiirsato dadka cadow ku ah inayna oran farmaajo nagu dhigan mareexan baa nagu dhigan kana nagu dhigan war waxaas ka taga waxaas adeer ka taga mid baa in leeyahay cadownimada ma muuqataa ismana qaranayso marka cadaawadda idinka maxay idin diiday maxaa cadaawadda idin diiday maxaa xumaatada idin diiday maxaa wanaagga raadinaysaan laangaab laga hayso ima soo wici kartid iskaga bax laangaab dhalay waa ilka yar ba umalnay adeerow ilka yarow waxba Somaliland ka qaadi maysaan wax aad Somaliland ka yeeli kartaan ma laha ma garat yaan soo qabtaa qofkan soo qabtay uu ka go'ay fursiyo ku soo qabtay oo ka go'ay Hello. السلام عليكم واخو سلام ساعه وكا قبيلك magaca warwaanina saaqay bali warwaanina asana manikani waan gartay see u aragtaa marka Soomaaliya oo Somaliland jiritaankeeda nacab iyo jiritaanka Somaliland haday qabiil dhex gelinayso haday ka hadlayso hadii Somaliland ay nabad yar samaysto aan ku ogolayn see u aragtaa marka adiga wax jacayl ma waysa marka hortay dhageysta aniga wax ku sheegay nin baa kula hadlaya askari adiga ka khabiirsan khabiira oo waxaan war ogahay anigu ka udhay iswada raaci shareer ka bilow shareer iyo ina gumeed iyo hawiye iyo daarood intuu cadowga Soomaaliland way lixdankii anaa geeyay maanta anaa gooyay ilaahu ma iga qaadi karaa markay wax dhacaana waa nu midoobana saaxib Soomaad garan marka aniga oo maxay inta ka yar baan anu askari military ah maantana 46 baan diyaar baan inaan difaaco hargeysana waan joogaa waxaan waan ogahay saaxiib adigu adna nin wanaagsan baa tahay marka taariikhu iyo ka hoos bixin iswada raaci waxani ma kala laha waa isku mid laakiin waxaan ku sheegay hal mid baan ku sheegaya marka hal mid baan kuguma dhaamo laakiin waan ogahay ayo soo qabanaya fursiyo
qosol beena fool wada qayaxaan qiilan garanayo fooraan qafilan qabarno hooseeyo maanaa lay qarsaa muddo laygu qali doono tii baa taagan aydhkii baa taagan maantana lixdankii anaa keenay anaa wax ka dhigay hortood baan qaatay maantana anaa gooyey midigtaan ku haystaa dibad iyo gudaba ilaah unbaa iga qaadi kara saaxiib adna waad maasantahay nin wanaagsan baad tahay dadka taariikhaha ayaa soo qabo adaa mudan marka waxaan ku leeyahay hal mid baan kuugu noqonaya ku weydiinaya sool iyo sanaag waxaan aaminsanahay inay somaliland tahay somalilandna qabiil maaha waa qaran waa ummadan wax isku darsatay oo dhul wadaagta marka lama oran karo daarood oo dhan baa waxay ku yihiin cadow somaliland oo waayo dee sool iyo sanaag baa daarood baa degan oo daarood baa iskale badintooda may daarood hawiyaa ka fogeeya waan dhul somaliland waan dhul somaliland daaroodka hawiyaa ka sokeeya saaxib waxa iska ilow hawiya wuxuu ku leeyahay hawiye colaad nagama dhaxayso weligeed isaaqii hawiye colaad kama dhex marin waa laba shacab oo yani maxaan ku dhaa nabada aadan cadde wuxuu ahaa aadan cabdillahi asbaa ninkii wixii niqaata yidhi buu ahaa saddex goor buu shuru qabtay ku celiyey uu ku celiyey isaaqa wixii niqaata war wixii nala taga way diideen laakiin kan sool degan iyo kan mareexaane baashii degan waa iskooda mid wey ilaa ka tabcasar leedhaa waana waxaan waa iskooda mid wey ma ogola nimankan isaaqna waa birlab waa reer birlaba wey ilaahay baa ku abuuray gacanka cadmeed iyo badda cas iyo istiraatijiga meeshani waxaana waa iska wada rawaxayaan maantana amnigu waa ammaan okay aniga hal mid somaliland hal mid baan kala dardaarmaya oo u sheegaya somaliland shalay qaran baad tirahdeen adal calankaasaad taaganteen oo aad ku dhimateen oo aad ku rafaadeen oo aad dad badan ku weydeen geesiyaal ku weydeen waxaan rabaa marka inaad qabiil ka daysaan garxajis iyo jeegaan iyo waxaas ma aqaan waxaas wax ummad ma socoto ummadda marka idinkii waxaad listen to me saaxiib yar dhigayso waxaas waa iska kabtaga magaalada sheegaan iyo waxaan wax ka bax mar hadday qaraxdo mashiinada meeska loo siman yar iyo weyn waa soo raacna anagu ma qarax baa sugi adiga waa ma qarax baa sugi adiga ina maya inaadeer maya dalku waa ammaan waa nabad wax walba siisi gacantaygu jiraa baac mushtarigayga iyo tijaaradayda iyo ciidankayga iyo milatarigayga uu dhisan yahay annaka mid baan ahay diyaarna waa waxaan iska iloo saaxiib marka waxa laga doonaya mid qori waa in shacabka Soomaaliya waa inuu hadaa mid wey number 1 si fiican hawiye iyo daaro waxa ka daran jareerta iyo ina gumeedka kuwa yaryar meesha xamar degan baa ka daran gebigiis waxa soo raacay total waa hawiye xaga wasar jareerta yaa waa hawiye jareerta maxaa wasar waa hawiye ma waa xuno meesha degan waa iska hawiye waa hawiye la adeegsado la adoonsado waa eeg hawiye wuxuu leeyahay aynu midowno isagoo colaad ma hayo hawiye wuxuu leeyahay naga midooba midowga muxuu kugu hayaa marka hadduu ku yaado midow wadankee haysta marka hawiye wadankee haysta bal ii sheeg adiga cabdiqaasin ka udhe ilaa caydiid ilaa kii u dambeeyey hawiye wuxuu leeyahay walaal aanu midowno mar labaad waxna la qabta aan isku nimaadno laakiin nimanka cadaawadu ku jirto salay furtada gacanta laga geliyey een xamarna lahayn hargeysana lahayn waa la garanaya cid ay yihiin ee maanta qaxootiga ee Nairobi mareesanaya iyo Minnesota mareesanaya saaxib Soomaad garan marka ayna adan adigu aan waxa tahay nin wanaagsan ma tahay waxna naga xumaan maayaan arrimuhu meel fiican bay marayaan ha u baqin aadan ku salaamaya saaxib aad iyo aad baa Ilyas marati soo qabo waa ka go'aya waraakii mideeya u jeeda mideeya waa ku salaamay si shar garay barnaamijka ku soo qabanaya mideeya Ilyas ku soo qabtay Ilyas Ali soo dhaw salaam alaykum salaam baro magacaaga iyo qabiilka waxaan magacaygu waa Ilyas haye waxaan joogaa gobolka Hiiraan baa joogtaa qabiilkaaga hawiye isnacaan ah hawiye ka tahay marka laba xaniyooda XL xawaala okay soo aragtaa marka ummadda reer Soomaaliya in cadaawad ku tahay Somaliland waa been maxaad ku beenaynaysaa marka waxaan ku beenaynayaa nin hawiya oo hub idii soo qaatay maaragteen oo idila diriraya inta ka socotaa haddaan kuu sheego maxaad isku furanaysaa waa isfurana okay isaaq horta qabiil marka isaaq waa jifidir kamid ah Soomaali isaaq inay jifidir kamid yihiin Soomaali صح
ستاس موجي واوي هاي اوكي نمان كدرت اد كسو دوشين ما يلودي ديفو يكم حلي او كاسار ديفو يكم ديفو حلي كنقو laba qabiil oo dirirtay ha fiirin نو Soomaalidu ور ما مغلي وردير مقع درت هوية اد شيغس ميل بو كلا دغالما meel walba magaca direed kula dagaalama shabeellada haday tahay annaga xawaale dagaal binuuhay biyamaalna waxa ku hay habar gidid oo dawladda xashiiq ba xawaale maalgelinaysa oo abtiyaal baa u tiin oo waa niman dir ah oo biyamaal wuxuu siinayay hubbu siinayay nimanka habar gidid annagu taamiya ilownaade adeer taamiya ilaawin de annaga xaniyahaygana waa ogtahay hadday shabeellada tahay iyo hadday jubbooyinka tahay iyo hadday tahay hiiraanba xaniyahayagan saarana haddana waxaa la qodqodayo waa ognahay kama aamusnin diyaar baan u nahay ilaahu bay hadeer qarax tobankayga wiil waa taqaanin haddaad hawiye sheeganaysaa iyo sagaalka Soomaaliyeed laakiin dir nacaybka aad u qabtaan isaaqna u qabtaan Soomaalilandna u qabtaan annaga waxa idinku darsanay annaga dhul la wadaagna saacadna lama heshiin saacad aan hawiye la heshiin ciddu rabaana sagaalka Soomaaliland noqdo ma jiro ku soo warniyo annaga dad laba xaniyoodan nahay xaniyahayna saaranahay ma ahana cid binaadan anaga barimayno hadday dagaal noqotana bunta qaarideena hadday gar noqotana waa idin garnaqsanayna kowdaha laakiin midda kale oday adoon qabiil gelin aan ka hadlo labada Somaliland iyo Soomaaliya وين عبت الصومالي أنا حد كله وأنا ديفو كله أو هيران دقن أو جوبين كدقن أو شباب لا دقن أو دقن قبل هذا ده أنت بقى حد الدولة فرمات معوها الله مسبح معي سهوية وهاللي واي مع الأول بس الصومال لأن أي سوء على كل سنة إنه يجي مسكعة الساق كجرت أما الصومال لأن كجرت إنه تينا كجرت موجودين مياه نبض على هايستان معي الصومال لأن كوادين نبض على هايستان هوية من وارد قارن كوسو حد قدبي وانا اللي عيرنا وحي قارن كوسو حد قدبي انا وانا قلت سنتين waxa way dad saddex dal lagu qabaateen markii la furaha la gaaro hadda ka imaateen yaa la qabnaa maxaa runta baan isku sheeganay wata been ma sheegay surana sheegay okay yaa qabtaa marka Somaliland baa qabtaa maamulka Somaliland dawladda Somaliland misnimaka dirad baa qabtaa bal ishu ay faansiyo Soomaaliya dhan ana u taliyo madaxaana ka haysana farmaajo adigoo okay adigoo Soomaali adigoo Soomaaliya oo waliba hawiye ka ah tartan oo waliba xawaale ka ah baa waxaad rabtaa inaad maanta tiraahdo Somaliland annaga haysana iyo annaga maamulna iyo adeer ma maqlay horta ruma ku sheegaya marka ruma ku sheegaya Somaliland horta cid wax u dhimi karta oo maanta awood ku dhan horta ma jirto been ku sheegi maayo awood maanta lagu muqoon adeegsade awood lagu muqoonin karo ma jirto horta kowdhe warna horta nin yara tahay hadaa runta ku sheego i'tiraafka aad raadinaysaan fashayaha ka raadinaa waa inaad xamar imaata aadan cadda wari dhigayso waa in aadan cadda ka soo dagootaa filla Soomaaliya aad tagtaa madaxweyne farmaajo aad ka saxiixataa warqad kadib ayaa i'tiraaf heli kartaa farmaajo أنا متكو هاي كورة هذه مرة أديكون نين هوية شجعني أو حوالا هرجيسة كم تدي قرتي بقولي أنا نين درا أو سومالان تاجرس أو سومالان هرجيسة أنت حنتك يا مقدس أنت جنا أو قريه يكون يلا أو هيران بقولي أديك أنا ما تذكرت عاد كم تذكرت هاي أنا كورة بيل جودة هذا هرجيسة يقول تبيسة كورة هذا تانك الله يتاوي إن أنا أديكو حوالا شجعني أبى هوية شجعني أما دارود شجعني دارو أنت السومالي لما حكولة ما أنت كلامك تجي هذا ما شرتين تاي يهدي حوالتها هذا أنا كل سلام يا أصحابك كمان سينا يا نين حوالة وقتها فكر كان هذا الشيء ما قال وما صنتاي نعيب كانت داي من حاسوسنا مد بانكو حاسوسنا يا إسكتها السومالي لأن يأديك السومالي كم طالع ديفو يكم حل وقتها لما بقول يكتب بكتابنا ديفو يكم حل وقتها حنوك حوالك خمسة حتى نغرغريين باوطا رجع السلة باونا حنوك حتى أنت كوش شيء أظن حوالله أنا فقير بقى كر يخاف أنا وحوى كرة وكادنا أنا نكي فقيقة هابانا أبدا عدو 6 سنة سوى بيها مياد اللي هو مية 6 سنة والله ما ميت كان اوكي لانغا بانا ميت كان يا كو قاده حتى من رغتay bal meed ba ka qaatay arde ado xawaal sheegay arde meed ba ka qaatay fikir
haddaan nin raga tahay bal idhe maana baad cadda kuu qaadi nin baad caddaan soo qabanaya deg nin baad caddaan soo qabanaya kabxan ley waxa ogaayay ayagoo meydkiina lagu gubay meesha wadadnimada sheegaysa maxay tahay hadda 66 okay markii hore waa weerartay waa maatay carruur baa heshay waa lays taas waa logyahay taa waa logyahay waad qabsatay baan haddaan ku leeyahay waad qabsatay bay kabxan ley adaa qabsaday waa naga saar laakiin yaa kugu soo liba cadaagi soo rogo cali ma maqasho cadaagi soo rogo neew rug caday maxaa kaa raacay maanta yaa haysta saddex boqol qof oo qabanay yaa maanta haysta new police meesha soo galay war new police iska daa niman direed ma ahayn niman kula dagaalamay fiqi bay ahayn war fiqi bay ahayn ogaadeen ma kula dagaalamay dadaa joogay kowde ogaadeen ma kula dagaalamay ila new police ogaadeen weey new police ogaadeen weey waa soo kireysatay amxaarada u dhashay allah balika xawaale fiiriya war ma maqle war xawaale ila xisha kasta taagsan war ilaado ceebtooda haya calafkooda ilaahay baa haya deefi kabxale maanta ana haysta ana maanta haysta guulna aniga qaaday dad kulaysa ana meedka iyo webiga ku daan aadan ku salaamay barnaamijka waa iga saartay aadan ku salaamay inaad meeqa qof wada tin taqana okay aadan ku salaamay meeqa qof aati balin aan webiga ku daadiyay meedkiisa wuxuu leeyahay meeqa qof aati laangaab dhalay adeer laangaabka lama sheekaysto baad cadda baad cadda isoo qora please nin baad cadda raba nimankii meedka u qaaday ma raba nimanka xawaale laangaab xawaala oo wadanka waxba laga weydiin hadduu yiraahdo Soomaaliland ku dhagan waaya war ninka dhulbaataan soo qabanaya warkaas waxba ka sheekeen ma ninka dhulbaataan soo qabanaya yaa baad cadda yaa soo qabtaa baad cadda raba ana baad cadda qof yaada ana baad cadda baan raba ونو كادو بانت معنا وش يسانيو أديك نجا بعد عدد صقر أنا بعد عدد صقر كلي أركب أنا يا مد عطال كنا ربعنا كمان لدي مرة عطال دقيسة صار تاجو نيو دقيسة برتلانكا ونقول نقولني درت لانديران موي لانكا نمو بتصيم وشنا صار معاذ نايست نيك أنا وحبات كلها زي بحاك أنا بريها عاد ستين يديك وإحنا مع وإحنا نقول سؤال اللي تقول نقول معاك السلام وراه يسوي حقه يسوي عربك هو علي كلبك هو علي أنقاك كله درتي بقى سوى عسل يا ما سجل ورا ودي بديني درت ما هذا درت ما هذا وحبان قرية كان أنا درت ما هذا وتر سيلي لي كم فوق يا ده كده جايو بس سوي كور أبيه إلى جوبك ورما كاهر إنكي إلى هديت أنا سوا عصب باك نوري سجل يا نمت وحوي دقيسو نندل بانتا باتاي نكا حوالي جدا كما هلايو نندل بانتا باتاي سومالنا نوح كله باتاي ما قرأت حماسة إيو أنا قبيل إيو غير هاي قال دقيسو هذا كيسيف هذا كيسيف عندويس waxaad igala hadashaa Soomaaliya Muusabixi Cabdi markuu aaday wadanka dariska la ah in dawladda Soomaaliya ka hadasho ma xaq bay u leedahay Soomaaliya wani horta waad mahadsan tahay horta qof walba arag isku hadlayay qof walba reersi ayaa waxa inuu afka reerkiisa ku hadlo afka reerkay ku hadlayo qalab baan saaraya ikan ardatiyo inta baasha u yardiso balo kula qabo nacala shaydaan ku yaal بلوان كقبته والله هذا هو أركي كور أنت كأركي كور وأنا يسوع يعني لايف كان كتير أقرأ كسر هذا نلو بانتا هذا نلو بانتا بام أوريون سومال لنا سوى أركت السومال كذا أوكي وان كذا يعني نن ماركتي نن ماركتي نلو بانتا أنا بسوي شيء runtii waxa weeye maxamedow horta wax la yiraahdo runta marka laga hadlo
waxna waa dhab oo xaqiiqo weeye waxna waa wax niyow iska niyad ku dhiso oo waxyaalaha weliba dumarkaa u fiican in niyadda loo dhiso xoogaa la dhawaad qurux badan tahay xoogaa la iska yara xoogaa ninka waxaa u fiican adoo runta inaad u sheegto raggana runta kama nixiso marka horta wax somaliland la yidhaahdo ilaahay leeyahay horta aan aqaanaa ma jirto waa wallaahi waa bilaahi waa tullaahi ilaahay baa igaga sarreeya inaan aaminsanayn oo aan aqoon niyaddayna kusoo dhicin aabbaha iyo hooyada iyo reerka iyaga toona aqoon niyaddoodana ku jirin laakiin waxa la yidhaha maamul laakiin waa jira maamul walaal waxaa weeye familiguba xaaskayga carruurtayda waxaad maamul bay ku socdaa wax maamul la yidhahdo yes maamul ahaan waxaan u aaminsanahay weliba aan responsibility u ahayn ama aan aqbalin in loogu waco maamul goboleed wallahi xitaa ma aaminsan meesha aan gaarsanahay somaliland ay la joogto absolutely meesha ay joogto jubbaland meesha ay joogto puntland iyo darajada ay joogaan horta way igala hooseeyaan marka waxana waa wax qofka iska sheegtay qofna wuxuu iska sheegtay hadda ninkii ugu liitay isaaq baa hadda soo qabatay weliba rag wax ka sheegay ama isaaq wax ka sheegay ama daarood ninkaas waxaa ahaa dhegeyso isugin ma inaan dhegeysanaysa qofka ugu liitaday isaaq waa reer fiican absolutely waa reer dagaal yaqaan sax iska celi laakiin waa iyo waa nimanka garxaajis la yidhaahdo waxa kale agoon dhashay weeye ku hoos nool weeye agoonta intaad ii soo qaatay ay waxaa weeye garhka dhirbaxa lagaga soo saaray oo cirada ay dhirbax waa bulookaan dhirbaxa ka soo saaray ninka waxbaa ka sheegay laangaab baan ku aqaanay hadda ninka wax ka sheegay soo qabay waxa waliba maanta lagu soo celin laakiin waxaan ku sheegay sida buraanburki mar ma maqle horta ma maqle adiga hal mid baan kuu sheegaya marka haddaad nin dhulbaanta aad tahay qabiilkaaga ku celcelinaya nin dhulbaanta abaad tahay dhulbaanta hay kala saari dhegeyso adoo nin dhulbaanta ah baa cari caddeeya ku dagaalanta oo puntland ku jiid adigoo nin dhulbaanta ah oo ciidanka gaashaaman ee somaliland wata baa laascaanood qabatay oo puntland ka qabatay adoo nin dhulbaanta ah oo ciidanka somaliland iyo dareeska iyo calanka wata baa tuqraqi fariisata marka ma waxaa maanta rabtaa inaa iga dhadhicisa anoo nin dhulbaanta ah baan somaliland ma aqaani dadku ma caruur baan nahay aryaa ma maqle laangaa baa ku aqaana adeer fiiri ar ma maqle sheegataa tahay adeer ninkii majarteen la dagaalamaya waa adiga ninkii majarteen ka saaray dhulka waa adiga u diiday aan is dhegeysano aniga taa igala hadla somaliland ma aqaani iyo waxaas iga daada walaal dhegeyso somaliland aad u fahmaysa marka adiga kuu raaco adigu saa u taqaan anigu ma aqaan adigu waxaad u taqaanaa dawlad anigu ma aqaan hadalkayga ku dhaafay waan maayo okay adiga dawladeeda waxba lagaa weydiin maayo dhulbahanta intuu somaliland intuu caasimadda loo soo wareejiyo laascaanood cindiraab iyo dawlado iyo hadalkan ku dhamayso aadi maysid armee maqle dawlad armee maqle war maxaa gaagaadee ma garanayo hadda may maqashaa bal soo laabo kusoo laabo marka inaad tiraahdo somaliland uma aqaan dawlad horta waa kuu dilinimo haddii aad dawlad aadoo aqoon adeer puntland marka ma jiideen waa jaraysaa foosiyo qabta layihahdo foosiyo kusoo qabta midaya soo dhawow midaya soo max soo qor foosiyo waa jaraysaa waa kusoo qabanaya maxaa ku dhacay aniga waa ku taageersanahay somaliland idibka koowaad waa adiga dhulbahantaa tahay ma diidi karti warsangeli wey ma garat laakiin adigoo reer somaliland inaad tirahay somaliland aqoonsani horta kuu doqonnimo oo weli wejigaaga soo saarta soo dhow war kamarada wejiga saari maaye waar waa dumarka kale adiga maaha nin baa haystay ku soo gaacdo soo gaabinaya nin kale aan rab maanta ay soo qaban lahayd midaya ha iga tega oo kusoo qabanaya gabadhaasaan kuu xejinaya soo dhawaa baa ku soo axmed dee qabta aad baan kuu salaamay salaamu calaykum salaam soo dhow libaax ayaa ku jira muller aadan kuu weydii waxaad weydiinaysay weydii waxaan ku weydiinayaa see u aragtaa haddaad gabar somaliland tahay in ummadda soomaaliya ay cadowga somaliland tahay ma kuu caddahay mise ma aaminsanid dad baa adiga waad kala saaraysaa weliba aniga laba reer waa ka saaray oo soomaalida ah ka tirsan oo qabiilada ka tirsan soomaaliya ah oo ah dhulbaante iyo warsingeli iyaga garab u ah iyo gaashaan somaliland ee waqooyiga bariga somaliland u fadhiya ma garad adiga see u aragtaa adoo gabar reer somaliland ah inay cadowga koonfur jooga ama farmaajo ha noqdeen ama hawiye ha noqdeen ay isku hal mid yihiin horta eeg labada reer aad saartay waa reer somaliland ma fahanti dhulbahante iyo warsangeli waa reer somaliland
qof xun oo mideeyo kalina ma matelo Somaliland iyo dhulbaanta toona ogahay ninkan weligiisa hargeysa ma tagin mideeyo waa siilka labada qaraaca weeyaan waa siilka dumarkoo kale weeyaan waa laba qaraac maalina Somaliland buu u nageeyaa maalina Soomaaliya aan gartay taa ku dheeraan maayo mideeyo ku dheeraan maayo waa ina yaroo la dhalayo ina yaroo braca kusoo korayo waan garanaya isaga iyo faamigiisa ma ku dheeraynayo waa ina abtigaya anigana ma ku dheeraanayo laakiin waxaa tahay siil kasoo ninkaa ka gudubo kolley adhow wuu soo qabsanaya dumar waa la xafaaltaba dumarke waxa weeyaan horta anigu waxaan ahay gabadh reer Somaliland waxaan ahay naag garxajis oo habar yoonis oo Muuse Ismaaciil baan ahay ma fahanti markan ay leeyihiin garxajis baa sida isaaqa kala saarin Somaliland waa far waa mid weeyaan ha ku qaraabanina garxajis ha ku garxajis waa ninka sanka ka xabadeeya sanka ka toogta weeyaan futada rasaasta kaaga furay weeyaan marka Somaliland ha kala saarin dhulbahante iyo warsangeli iyo isaaq iyo maxay tahay gadabirsi kulli waxa la wixii Somaliland waa reer Somaliland halka iska dhig waxa yimi Soomaaliya isug da Ahmed Daaqo isug waxa yimi reer Soomaaliya reer kale ida hawiye ee halka ula baxaya maanta kusoo reer kale ida hawiye anagu hadaan nahay reer Somaliland shacabkayaga reer Somaliland rag iyo dumar madaxdayada odayaashayada mid kasta waxaan nahay walaalaha iyo Soomaaliya laakiin Soomaali walaala ma nihin waxa weeyaan cadawga Somaliland run markan ka hadlay anaga hawiye abaal baan u haynaa abaalkan u haynaa waxa weeyaan Maxamed Deerane maalintii rasaasta uu nagu furi lahaayeen nadili lahaayeen diyaaradda dushayada uu siyaad barayiri rushe waa ninkii ku tuuray cilada ee Jabuuti ku tuuray ee naftiisana mahalakada galiyo weeyaan annaga wax noo hiiliyo ninkaas la arkay ma garatay marka hawiye madaxaygu saaray laakiin runtaan u sheeya hawiye annaga maxay hayday mid iyo laba ma sheegayo laakiin hawiye annagu sidaan moodayna ma hawiye sugad waan ka dhagalay hawiyaha moodaysa ma kii hargeysa diyaaradda dul marinayay ee Jabuuti fariisanay taariikhda waa haya waana ogahay kii maaha maanta marka mid caada qaata hawiye cusub baa dhashay hawiye wax maanta Somaliland uu hayo ama maanta weligii kama uusan hadlin madax buu soo qabtay madax buu ka noqday wadanka weligii kama uusan dhidhin inuu Somaliland soo xirgeliyo isagoo aan wadankiisa nabad ahayn buu isku dayay xaas sheekh baa isku dayay sheekh shariif baa isku dayay iyaga maamulka ku meel gaar bay ka hadleen Somaliland sidee uga hadleen marka iyagoo asaas maraya maxay Somaliland kaga hadli karaan maxay Somaliland u haywaysan karaan iyagaana ka dambeeya maanta filinka Somaliland lagu haysto oo farmaajo ka dambeeya farmaajo waa shakhs daaro haduu kuna abiyahay hataa oo ma jirto kuna abiyahay ama raxan kuna abiyahay hawiina oo kula mid oo kama hadlinba muxuu ku kala duwan waa isku hal same hawiye kii shalay ma mid maanta dhashay waa kii shalay caydid bay ku faanaan caydid maanta uu dhintay gudub ku jira maanta hawiye kii ma waa mid maanta isaga habar gidira la isku dira sagaal lafood isku lays habar gidita aragtay gobolka iyo barka degan ama gobolka degan oo gobol dhameystiran degan baa sagaal lafood isku disho oo la kala saara marka inaad hawiye ma ku soo hawiye annakum baa walaalna ana Soomaalinimada annaga jecel annaka walaal nidhaahna annaga walaal noo yihiin annaga buxuba gaaro aan dadka kale Soomaalida kale ku jirin baa nagu jirta haddaanu nahay maxay tahay reer waqooyi nahay oo reer Somaliland nahay oo siba isaaqan nahay walaaltinimo iyo jacayl aan bilaaadmiga kala qabin oo annaga waalidii markii horeba calankayga intaanu soo qadnay xamar ka soo ragnay baa wali nagu jirta laakiin waxayna tuseen farmaajo annagoo shalay tatiina lagu dhigay la ogaa maantana waxa kaba naloo gashaday oo maxaa nala soo xasiyay T88 laakiin maanta T88 waan u diyaarsanahay annaga ma kala gurayno xasan sheekhna shalay kii noo bootaynayay buu ahaa inkastaanu annaga dee sidan maanta uu cidhiidhiga farmaajo noo saaray aanu noo saarin haddana waxba noogama sokaynin oo wax la wuxuu nooga sokeeyay muu jirin annagu waanu soognahay Somaliland haddaanay waanu ognahay maxay tahay koonfurna waanu ognahay ma fahantay koonfur waanu ognahay hawiye waanu ognahay idan ninkooda wariyahay Cabdillaahi Balwaan oo maanta halkan hadduu iga dhageysanayo fareen baanu hay waanugu jira
somaliland saasuu ugu tiqtiqsadaa marka uu arkay in puntland iyo somaliland islaynayaan caguhu somaliland la dhacaa cagaha ayuu somaliland la dhacaa ninka la yidhaha axmed carab annaga axmed carab baa wuxuu yidhi gar iyo gardaraba inanka la yidhaha axmed carab waa shiikhaal wuxuu yidhi gar iyo gardaraba waan ku raacsanahay buu yidhi somaliland ma fahanti hawiye waaweyn maaha hawiyaha waaweyn maaha shiikhaal waa hawiyaha waa dhagaysa ka gudub cagma dhige waa oday weyno hawiyaa waa oday weyn xalay mooye habeen horaan dhagaysanay waa odayga gabay waa cagma dhige wuxuu yidhi habeen horu hadlayay nin reer somaliland uu soo qabtay wuxuu yidhi ma jamhaddii baa la laynaya jamhurtuuraya buu yidhi jamhaddii cagma dhiga ha ku ah reerkaasuu naga taagan hawiye cagma dhiga ugu weyno cagma dhiga ugu weyno cagma dhiga jamhad baa wax lagu tuurayay buu yidhi uu u hoos geliyey oo hadalka hoos ugu dhigay waanu dhagaysanaynay soomaali maxamed way wadhagaysanaysay waa habeen xalay mooye habeen hore ma fahantay marka annaga hawiye waxay wanaag oo noo hayaan ma jirto wax waddankoodii bay nalagu laynayaa kursigoodii baa naloogu hanjabayaa xamar baa naloogu hanjabayaa ina yaroo maxay tahay mareexaanaa noogu hanjabaya shalay annaga kursigayaga iyo calankayaga waxaan u keenay hawiye xamar baa hawiye iskale nooma hiiliyaan wax nama taraan afkuna waa hiil xitaa afku waa hiil afkana noogama hiiliyaan xitaa waxaan ku weydiinayaa hawiyahan aad maqashay hawiye yuu la dagaalamaa dirib buu la dagaalamaa ama biyamaal ha la dagaalamo ama suraha la dagaalamo hawiyahaad aragtay oo cid kale iska dhicinaya ama daarood la dagaalamaya weligaa ma arag ma dhicin dirib buu la dagaalamaa axmed deeqow yaro dhagaysta axmed deeqow aniga i dhagayso hawiye dhag buu leeyahay dadka bilaaadmiga ilaahay laba dhagood buu sameeyey may maqlaysaa warkayga qof kastoo hawiyo i dhagaysanaya inankii xawaalle iminka ku jirayna ha noqote ee lahaa 3 baan somaliland ku qabaa hay dhagaysto hay maqlo hawiye dhag buu leeyahay qofta ilaahay dadka labada dhagood buu sameeyay hawiye dhag buu leeyahay dhagtana daarood buu ku maqlaa dhagta kale way daboolan tahay dhagtii kale uu dir ku maqli lahaa ee bilaaadmiga kale ku maqli lahaa tuush baa kaga jira waxbaa lagu cabeeyo wuu cabaysan yahay markaa dhagta xagga daaroodka u furan dhag baa u furan oo dhagtuna daaroodkay maqashaa daaroodkaa ku gura ma garatay markaa nin daarood dhag bay leeyihin dhagtaasaad inta ilaahay u furaya dhagta kale u furayo bannaanaanayso ee bilaaadmi kalena ay maqlayaan waan iska sugaynaa bal waan iska sugaynaa laakiin maanta waxaan kuu sheegayaa farmaajo iyo nin kasta oo kale oo isku daya somaliland baa ku hor taalla xabadii baa ku hor taalla maanta diyaar baana rag iyo dumar diyaar baana war rabbi kabca waxaan kuu sheegayaa nin kasta oo imaqal waxaan kuu sheegay shalay maa shalay dhagax baan ku dagaalamayay budh baan ku dagaalamayay kaaraha iyo bmka iyo suuga iyo maxay tahay beega waxaan ku furanayay budh iyo baan ku furanayay iyo maxay tahay iyo dhagax maanta suug baa kaa soo hor yaala suuggii siilaanya waday ayaa ku hor yaala war rabbi kabca inaanan xamar biyo u kabanaynin taa nin walaba niyadaada geli dir baa soo hadhay reerka dir la yidhaaho ee maalin walba aan ognay carruurta iyo maatada iyo ayeeyada lagu gubayo waddankee lagu leynayana waanu la soconaa waanu ognahay maanta haddii maanta uu maxay tahay wax kasta oo dhaca dir meelay joogaan koonfurta direeday gacmaha isqabsada yaan laydin khiyaanaynin hubkiina yaan laydinka dhigin waxaan arkaya xasan cali khayre oo hubka ka dhigaya dadka reerka dir la yidhaaho hubka yaan laydinka dhigin hawiye waa la nagaysto hubkii baa laga dhigayaa waxbaa loo qabtay reerka haweela sidan may ahaan jirin reerkii habar gidire la odhan jiray waxbay yaqaanaan sidan maaha waxbaa reerka loo qabto biyaa la cabsiyo saasay daraxa dhulka ugu hayaan waxaa la rabaa in daaroodna la hubeeyo oo reerkaa kale la hubeeyo reerna hubka laga dhigo cali waxaa loo soo diray maxay tahay ninka maxay tahay maskaxda ka dhig madaxa yar leh ee la yidhaaho maxay tahay ra'iisul wasaaraha kaasaa sidaa u gurbinayaad mooda inuuna dadkiisiiba ahayn nin waliba ninkiisa laabtu ku haystaa laakiin waad aragtay nolosha hawiye ku nooliyay hawiye maxaan hiil uga sugayaa iyagiiba isu hiilin lahay anigu saan hiil uga sugi karaa hawiye iyagiiba hiil lahayn iyagii maanta hiil lahayn saa loo cunaya loo jaqaayo isagiibaa kala yaala isagiibaa isagaa hiila oo isagaan isu hiilinayn oo isagiibaa la cunaya oo isagiibaa sidan loo kala jijabinaya oo habar gidir baa toban reer loo kala sameeyey waayo iigu hiilinaya aniga hiilkan ka sugaya maxay tahay laakiin waxaan u sheegayaa adigu maxay axmed daaqow ka soxo somalilantan
iyo garxajiskan iyo maxabar jecladan iyo ciyaalka halkan sacay annagu xabad isuma qaadana afkaan لا isku waxaas cayna ma annagoo afka isku cayna aniga haddana taan gacmaha diidanayo waxa isqabsana weeye Somaliland dad badan baa wax kule isaaq kaliya ma laha sabaroon kaliya ma laha ciise ma laha dad badan baa warsan kaliya wax kule dhulbaanta wax kule qabiilo badan wax isku darsaday waa dhul badan waa haddii maanta Somaliland adeer ee mid noqoto waxaan ogahay Puntland la sheegay dariskaaga inay xaafad noqonayso marka Somaliland marka see lagu heli karaa kalsooni iyo wax wada qabsi waxa lagu heli karaa qabiilkoo la iska saaro been kuu sheegmay laakiin garxajis iyo jeegaan iyo waxaas ma jirto Somaliland waa Somaliland hawarwarin waxana waa faataa bakhla la yidhaha faataa bakhla la yidhaahayo halka dadka kale hubka iyo dhig hubka iskaga qaadanay istooganayaan madaxa iska toogtaan annagu isma toogano ismana dillo annagoo iscaayanaanu gacmaha isqabsanaa Somaliland waa hal weeyaan maantana waxaan kuu sheegayaa ha ka warwarin Somaliland haba is odhanin Somaliland wax yar oo intaa leeg oo biyana had noqotay biyana had noqotay waxbaa ka janjeera saasay Somaliland isugu xidhan tahay waxaanu leenahay ciidan waxaanu leenahay lacag maanta waxaanu nahay dadkii shalay la laayay ma nihin dadkii bilaa hubka ahaa ma nihin dadkii maxay tahay hurday ma nihin maanta dumarkayaga iyo raggayaga iyo saqiirka iyo kabiirkayaga intaanu leegnahay war rabbi ka bacan waxaan kuu sheegaya inaan cidina annakana loodinaynin taa ku talagal axmedow ka seexata axmed deeqo aad iyo aad baan kuu salaamaya gabadhaas waxay ahayd gabar reer codkeedana ka hadashay iyo fakarkeeda mideeya kamarad kuma saarna kuma arko mideeya kamarada ka baxo kusoo noqo kamarada soo dalbo hawiye iyadun wasin bay kulada hawiye muxuu wasa isaga waa dabada laga wasaya arraayda cashoore waxay tahay hawiye iyadun wasin bay oriya gaale soo dhow abti waa ku salaamaya abti macane war qabiilkaaga magaca kaa qaaday abti horta meesha ku jidid baa ku jira ma fahantay ayaa Somaliland baa fushay meesha aadid baa kula aadaya adigu abtiyaashay meesha aadaan baan aadaya ma fahantay waan gartay abtiyadaas adiga yaa u dhalatay marka walaal nin MJ amana MJ nima jeerteena tahay waan gartay marka waxaan kaa rabaa abtiyadan waa Somaliland sax Somaliland marka cadawgeedii inuu hadda banaanka u soo baxay ma ku muuqatay adi mise weli ma aragtay maya abti cadow ma jiro waxa weeye Soomaali waa mid ina muqaddis ahaana fiican Soomaali weyn wax lagu raadsado arme maqleeniyo adeer Soomaali weyn tan dir lagu diro oo Somaliland lagu baabiyo adeer jeebka gasho nima jeerteena sheeganaysa waxaan gaa rabaa ma jeerteen marka wuxuu ka cararayaa haddii Somaliland ay mid noqoto oo lugaheeda isku taagto xaafad buu noqonayaa haddaan kuu sheegaya xaafad baa noqonaysaa taa ku xisaabta taad ka cararaysid waa taas xaafadaadana awalba waa ahay haddana xaafadii baa ku noqonaysaa jamaal aadan ku salaamay inagoo dhan baa wada xaafad ma jirto meeshan Soomaaliya wax la yiraahdo jira qarannimo jirta anaga Somaliland baan la yiraahdaa Somaliland baan aaminsanahay nabadda dhisteen adiga waa yahay nabad maxaa u dhisan weyd maxaa wadankaaga isku cunay maxaad gabdhaha u kufsanay adoo nima jartana sheegana intaad bilaafka soo gashay weli wajigaaga ku qabo kamarad maskiin go'aad waxaad leedahay anoo nima jarteena baad ii soo qoraysaa leedahay weli maxaad gabdhaha keeni badeeqo fiiri horta karbaashku waa soconaya ma fahantay laakiin mid baa kuu sheegaya meesha hadda mawduucaaga ha naga saarin mawduucaaga muhiim ah aad muhiim u ah inaan laga dooda mudan adiga waxaad igala doodaysaa Somaliland adeer farmaajo madaxweynihii Soomaaliya wuxuu ka hadlay Somaliland maxay halkaa u aaday maxay horumar u gaartay maxay u dhisatay wadankeeda buu ka xun yahay weligiina habeen ma niyeysan inuu aado mana aadi karo baraganimada Somaliland lagu aadi waayo oo maanta lagu booteynaya maxay أنا كل شيء فرماتش كم حما محي سوماليان هالك وادي ماشي سوماليان أدينا ودل يرو جني لده ودل يرو أفريقيا كم ذا ودل سيد الصومالية أورجوبير أفريقيا حبين وقتها حبين وقع وحوس فرماتش فسحنا الدولة سمين كده ما تشلو ولا بنتلان ولا سوماليان ولا تشوبلان قلا سمين كده ما تشلو وحوس فرماتش كثيرا سعيد الدني وحو هذه إمارات كم حال وقال له يا فرماتش
imaaraadka waa dowlad yar oo carbeed oo ورولي safaarad قلبها ku leh أدر ما مغلى سومالي سفارة كلها جري سفارة كلها ورد ها أما ما geni kuma laha geni بس kuma laha Soomaaliya ما safaarad على علاقات كاجا دحين هذا هم بسيرسن تاي وابجاري ويدا دي سومال هذي قارتي وابقولي قارتي maya Soomaaliya iyo geni cilaaqaad baa ka dhaxeeya Soomaaliya iyo geni ayagoon safaarada jirin bay cilaaqaad ka dhaxeeya حبك كمان Soomaaliya كذا هاي أرشي أغلى ما تشوف Soomaaliya waa wadan may aan kuu sheego dhigeyso aan kuu sheego Soomaaliya waa wadan ka mid ah wadamada Afrika urur goboleedka Afrika genina waa wadan ka mid ah urur goboleedka Afrika xiriirka Afrika oo dhan ka dhaxeeya baa geni iyo Soomaaliya ka dhaxeeya haddii ay geni xiriirka jabiso okaadi haddii ay geni xiriirka jabiso haddii ay geni xiriirka jabiso farmaajo wuxuu awoodaa inuu dacwad u qoro Cabdifataax Al-Sisi oo ah madaxweynaha wadamada ku boobay urur goboleedka Afrika taasna waxay kaliftay in Muuse Bixi dib loo soo celiyo asagoo aan la kulmin ninkii qaawanaayo geni madaxweynaha ka waaba la kulmay waaba la soo dhaweeyay Muuse waa la soo celiyay Muuse maanta waa la soo celiyay warka dib u raacadaada arkin Muuse waxa la yiri laga baxday waana khalad baa noogu timid armay maqlay dal madax banaan adiga nima jeerteena tahay aadan ku salaamay nima jeerteena tahay waa ila dooday waxa rabtaa Somaliland inaynu wariga nisaar isku haysto adeer Soomaaliyada kale iyo kufsiga hablaha iyo Muqdisho nabadeeda horta keena aadana ku salaamayaan aniyo Muqdisho waa nabad Muqdisho waa nabad bukule waa nabad Muqdishadeen nabada Muqdisho farmaajo maalin walba dad kuleynaya adeer Somaliland waa inaan taageernaa Somaliland waa inaan meel walba ka dan waa dhulbahanti waa inuu taageera laangaabku aad waan soo qabanaya وريا أدر قد كاستاجي وني أورتا نيو مهمته حوي نيك اللي محمدو وحوي أورتا واحد هاي بدك دي بس ما يدك واحد دي أدو دكتور مش أحفظ كسرنا صحتين للبهانت وحصنا وني دقيسد أورتا دقيسد هذا الكلام مرد هذا الكلام على يزيد dadka kale waa dhageysanaysa sida malaa'igta dadka waxa dhibaya waa runta anigu runta sheegay taas way cabaas ay ku dhageysaa ay ku dhagintaaleen dib u fariiso ha dib u fariiso soo gaad ha dib u soo gaad is xarig isku xirta hadlay is xid family ciiday joogtay xorade waa isku joogay ma joogaysi mid joogaya ma tiid anigu waa runta dhagxanta waa garaacad runta naga timarnaa abu noohaya ar isoo qabanay kan isoo qoray laangaabka ar isoo qabaa la isoo qoraani caadi u doodi karto ahli karto waa soo qabanaya caadi oo hada midaya maxaan ku soo qabtay saaxiibta waa idaarisay ani waa ka baxaya lefa ku reey soo dhow baraada laakiin ku soo qabanaya qabiilka magaca war maxamed deeqo qabiilkaygu waa surre fiqi maxamed marka waxa ku leeyahay waxa ka hadlaysay Somaliland iyo arrimahaas ka hadlaysay ma fahamtay isku soo laga ku soo qabanaya soo aragtaa Somaliland in ay maanta ummadda Soomaaliyeed ee cadawgeeda yihiin dirtina koonfurna cadawga ku tihiin Somaliland bal ii sheeg maya cadow kuma nihiin dadka dhaqanka iyo odayaasha iyo dadka shacabka kuma aha laakiin niman kastuumadii sida hore u sheegtayba kastuumada farmaajo waa ku ah cadow marka raggaas marka waxaan leeyahay Somaliland si qabyaaladaysan buu farmaajo uga hadlay iyo gudoomiyaha wasiirka arrimaha dibadda oo nin dhulbahan oo majeerteen oo ka soo jeedo Puntland wuxuuna yiri gani xiriirka u jarna gani xiriirka ee Soomaaliya ka rabto maxay tahay mise ee Soomaaliya kala dhaxeeyay marka waxaan leeyahay ninkaas waa iska riyooday dadkan Somaliland waa dad ma taqaanaay dad Somaliland waa dad hore u socday cirkaas ay marayaan laga ku soo haye cirkaas ay marayaan Somaliland hadaad dirtiin oo taageersantiin Somaliland waa inaad taageertaan meel walba ka taageertaan aadee farmaajo wuxuu hawiya u bahdilan ma sida hawiya bahdilantii ku sida hawiya oo habargidir loo bahdilan miyaa u bahdilantii uma bahdilan waa taageersanahay shacab haddaan nahay adda odayaal dhaqameedkeena waxa naga dhawaa taageersanahay Somaliland guul nimankan wasiirka arrimaha dibadda uu kow ka yahay iyo ma taqaanay farmaajo kastuumadiisa dhammaan
ha ii kala reebin macal nimanka hadda annaga aan kasoo jeedno suraha ee dowladda ku jiro kulli ma rabaan somaliland madax banaanida ma rabaan laakiin annagu waa rabnaa somaliland guul baan leenahay كتاجرة ميل والباتجنتين كتاجرة كم موجي فعل كم موجي هذا دوفار قبل فعل بلو عدا haddaa Ethiopia joogno iyo haddaa Kenya joogno haddaa joogno Muqdisho meel walba waa taageereynaa dadkaas waa dadkaanagi waa dad Somalilander ah wax Soomaali la yiraahdana ma jirto dadka reer awdal ee ka soo jeeda Soomaaliya maalin walba lagu sasabayo ma taqaanaaye Soomaali waa mid iyo waxaasna waxaan leeyahay ka waandubaano Somaliland ha iska baan leeyahay waa dadka ugu fiican Soomaali haddii waa dadkii 60kii iyo ka hor keenay isku keenisda Soomaaliya iyo Somaliland keenay weeye waa dad jiro waa dad ma taqaanaaye waxna gala waxna gooyo marka waxaan leeyahay waxba lagama qaban karo Somaliland oo dhan wax laga qaban karo ma jirto marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed beelaha kalena ha taageeraan Somaliland wali beesha sure iyo biyamaal iyo dhammaan beelaha direed biyamaal iyo adeer dir inta marka adiga aad bay isaga tawana Somaliland ka taageerto kana hadasho marka waa inay ka hadasho waana ka hadlaynaa dhammaanteen marka maalin walba dani wuxuu tagaa meesha la yiraahdo Imaaraadka Carabta dani marka daarood ahaan ma looga aamusaya ma la soo qabto dani billahi lama hado wallahi lama hado billahi lama hado Somaliland ba qabiil ahaan loo weerar qabiil ahaan ba lagu ataa ma garad marka adeer qabiil ku ataara dawlad waxa la yiraahdo ma jirto wax dawlad la yiraahdo ma garad ma jirto dani ma asaga warkiisa ma xadiisa maxaa dani loo qaban laayahay maxaa ma taqaanaaye Axmed Madoobe loola hadli laayahay marka maamul goboleedadii Soomaaliya ka tirsanaa oo sida saxda uga tirsanaabeyba xukumi kareen marka Somaliland inay afka la galaan dawladdan taagta daran bay ugu yeeraan reer Somaliland waana ku taageersanahay kelmadaas wax ay taag iyo tabar ay hayaan malaha waxaan leeyahay farmaajo Ugandeska iyo ha ku waardiyaano Kenyaatiga iyo Ethiopiaanka halkaas iskaga jir waxna kama warheysid taadii aad waxba u heenin oo naf u heenin marka waxaan leeyahay gari maxaa garabta waa ku kuleeyeen gari ma ninkii hablaha soo dhicin waaya xaqooda xaqi caasho soo dhicin waaya garigan aad ku faanaysaa madaxweynaha ka dhigaysaa naga dagaano soo qoran waa ninka ugu xun waa iska qoslaa saas uu caloosha weyn iyo camasha weyn u taagaa muxuu yahay dani muxuu yahay balaayo markuu Somaliland maqlo suqaadsha been ku sheegi maayo si habargidin markay khayr u maqasho dani camal weyn uu meesha ku haya wax uu haya malahan farmaajana hadduu qabyaalad usaas u sameeyena annaga u joogno Somaliland annaga u joogno haddaan nahay dhammaan beelaha diraad meel walba joogto waa taageereynaa Ethiopian ka taageersanahay meel walba ka taageersanahay waana taageereynaa waana taageeri doonaa nimankan dani iyo reerkooda ka soo jeedo iyo farmaajo waxaan leeyahay ummadda Somaliland dani wuxuu yahay mala marka waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeedna yaan la idinku dirin Somaliland waa dadkii haddii Soomaaliya la yiraahdana Soomaalinimo ugu adag oo dadkii Ethiopia arbaaxada aragti ku dhufta ayaga ahaayeen saraakiisha ugu sarreeyay waxay ahaayeen nimanka Somaliland marka waxaan leeyahay waan ku salaamayaa saaxiib inta ku jirta iyo dhammaan dadka Soomaaliyeedna waa salaamayaa ayo walaalkay bal dadka soo caynaya soo qabto isoo qor ninkii dhamaanta dhar isoo qabo baarbaya soo qabto kan